بسم الله الرحمن الرحيم وكلمة ديني دي رجلين تهيد رنتي نفطيد ينفيه نبانو سو جيدين جري ما أنت وحنو يرى تابانينا برباريها أما أبابيها أو معلنك وحباريا دالين يرادا أما جيلك سو كوريا رنتي قف كستا أو وحباربارينيا أما هويها نقطو أما آباها نقضو أما معلنها نقضو qof kastoo barbaarin ama dhalinyarada waxbaraya waxa looga baahanyay inuu noqdo qof akhlaaq wanaagsan oo runtii wanaaga iyo tacliinta fiican lagaga daydo oo naxariis badan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam raxmadda iyo magaranaysa wanaaga iyo dulqaadka dhaqankiisa iyo wanaagiisa heed nabiguna wuxuu yiri man laa yarham laa yurham qofkaan naxariisan ee aan debacsanaan ee aan qofka kalgacayl iyo wanaag u muujin ilaahay uma naxariisto sidaa awgeed qofka barbaarinaya awlaadda yaryar ee soo koraysa ee mustaqbalkii beriya waxa looga baahanyay inuu u dhibirsanaado oo uu soo dhaweeyo oo aqoontiisa iyo kartidiisa kula dadaalo runtii dhalinyaradu waa jiilkii beri mustaqbalkan caalamka bedelayay ee qof kasta wanaaga uu macalinkiisa ka qaaday u gudbin lahaa sidaa awgeed waalidiinta hooyooyinka waxa loo baahanyay awlaadooda hadalka runta ah iyo ka naxariista badan inay u muujiyaan oo beenta iyo magaranaysaayay xumaanta ay ka ilaaliyaan waayo kamaa tudiinu tadaa sidaad u dhaqanto eed ilmahaaga ula dhaqanto ayuu isaguna beri kula dhaqmaya waa inaad runta u sheegto oo aad waana iyo wanaaga u muujiso laakiin haddaad nacdal iyo khiyaamo iyo been ilmaha ku ababiso hadhowna waxaasuu isna ku kacayaa hadhow aduu been kuu sheegayaa hadhow aduu ku khiyaamaynaya waxaasoo dhamminaaday dhabarka kaa jebinayaan macalinka waxaa looga baahanyay aqoontiisa iyo kartidiisa inuu ku shubo ilmahan isagoo hagar la'aan ugu shubaya runtii qofku beerto isagaa u aaya sida beerta markuu qofku beerto uu hadhow midhaheeda iyo wanaageeda cuno qof bini aadana oo soo koraya haddaad soo barbaarsato ood aqoontiisa magaranaysaayay kor u soo kiciso hadhow adigibaa u aaya dalkibaa u aaya diintibaa u aayasa waxaan ku talin lahaa qof kastoo barbaariya ay makaan meel kasta ha joogo inuu awlaadda u naxariisto waxaad arkaysaa dilkii iyo dagaalkii oo runtii waalidiinta iyo macallimiintii ku badan oo macallinku wax dilayo waalidku wax dilayo macallinkii uu cadho iyo magaranaysaa ciil uu magaranaysaa awlaaddii kula kacayo waalidkiina la mid looma baahna waxaa loo baahanyay in loo naxariisto awlaadda irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa dhulka iskaga naxariista oo iskaga debacsanaada samadaa laydinka naxariisanayaa awlaadayna u naxariisano aynu wanaag ku beerno ilaahay xaqan haynugu sugo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu